doorashada wadanka Mareykanka ee sanadka 2008 ayaa ahayd mid si weyn uga gadisneed kuwii horay u soo maray. doorashadan ayaa waxaa ku loolamayay Senator Barack Obama oo isagu ah nin madow oo asal ahaan ka soo jeeda wadanka Kenya, iyo Senator John McCain oo isagu ah cadaan halkan aabayaashii ku dhasheen. waxaa iyana mudan in la xuso in gabar cadaan ahi la jeclahayd Senator John McCain. si kastaba doorashadan taariikhiga ayaa ku soo dhamaatay in madaxweyne loo doorto Senator Barack Obama oo noqonaya ninkii ugu horeeyay oo madow ah oo madaxweyne ka noqda wadanka Mareykanka. doorka Soomaalidu kaga jirto loolankan ayaa isaguna ka duwanaa kuwii hore oo ay qaybta ka ahaayeen. waxaa la arkayay Soomaali fara badan oo iyagu si ba'an ugu kala ololeynayay labada xisbi. waxaase mooday in iyaga oo dhamis ka sinaayeen rabitaanka ah in Senator Barack Obama ku soo baxo madaxtinimada. balse waxaa soo ifbaxayay isqabqabsi la xiriiray doorashada labada nin ay isku hayay aqalka sare ee duqeyda Mareykanka, Senator Norm Coleman iyo Al Franken. iyadoo uu sheegtay Senator Norm Coleman in uu ku guuleystay tartanka ayaa xisbiga dimuqraadiga iyo Al Franken ku dacwoonayaan in uu jiro wax isdhaafis fara badan oo ka dhacay meel ay Soomaali badani ku codeynayeen. qaar ka mid ah Soomaalidii halkaa kaga shaqaynaysay iskaa wax u qabso ayaa lagu eedeynayaa in ay u tilmaamayeen codbixiyaasha qofka ay u codeynayaan, iyagoo rajeynaya in uu halkaa ku soo baxo musharaxa ay doonayaan. ajaayib ka badnaa maanta la kulmo aad iga naxay waxa kamid ahaa dad Soomaaliya loogu talagalay inay volunteers noqdaan oo u kala dagaalamaya in laba shakhsi Norm Coleman iyo Al Franken in loo kala codeeyo. meesha dhexdeedana ay aad iyo Soomaaliya noo soo jeedo Soomaalidan ama meesha Brian Coyle ka shaqeeyno awgeed waxyaalihi waxa ka badnaa maanta lagu dhexdeedna arkay. arrintan ayaa keeni karta in dad Soomaaliyeed ku muteystaan xabsi iyo in uu daaho go'aanka bixinta qofka ku guuleystay kursigan. si kastaba ha ahaatee Soomaalida ayaa u muuqata in ay ku baraarugsan yihiin waxtarka uu yeelan karo codkooda. Maxamuud Wardheere oo isagu u shaqeeya xafiiska Senator Norm Coleman, mar horena u tartamay duqa magaalada Minneapolis, ayaa Soomaalida Mareykanka ku talasiinaya in uusan dadaalkooda Soomaalida ku ekaan doorasho, balse kula talin lahaa waxa weeye waa ognahay siyaasadda waa jecelnahay, dhalinyaro badan oo friid aan leenahay, smart aan leenahay, aan noqono staff Congress-ka. meelaha ugu fiican Congress-ka ilaa iyo White House sidii aan dad ugu darsan lahayn, dhalinyaradan ugu dhiirigelin lahayn waa inaan sameynaa. Soomaalida gobolkan ayaa gaartay bisayl iyo garasho sahlaysa in ay la noolaadaan dad ay kala dano iyo diin duwan yihiin. waxaa kaloo lagu doodi karaa in ay fahmeen cod iyo qalqaalo in wax lagu bedeli karo. Maxamuud Wardheere oo arintaasi ka hadlayana wuxuu yiri doorashadan hadda aad baa la soo xagxagtay, way kululayd emotionka dadka labada dhinacba. waxa arkaysa dad mid u duceynayo, dad mid habaarayo, waxa arkaysa Simon iska xadaayo iyo dacayda dad kala dhintay. laakiin waxaan rabaa inay dadka Soomaalida ogaadaan in sidaan aan Soomaali hadaan sameyn karno. kii badiyo kan kale wuu hambalyeynaya, birrito waxa la waayay waa la gacan qaadaya, dalka la wada shaqeynaya dadka. Soomaalida u soo daleeshay wadankan Mareykanka ayaad moodaa in ay tusmo fiican u noqonayaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. waxaana laga fili karaa in ay qayb muuqata ka noqdaan hoggaanka iyo siyaasadda wadanka Mareykanka. haddaba waxaa isweydiin mudan muxuu noqonayaa waxqabadkooda ku aadan Soomaaliya. Cabdullaahi Xuseen Cabdi Macruuf, Minneapolis, Minnesota.